Asxaabay maanta waxaan ka hadlaynaa shakhsi ka mid ah ashkhaasta animeedka ugu khatarta badan kaasoo magaciisa laga bedelay waxaana lagu naanaystaray waxshigii ama bahalkii. Waa nin leh wejiga malaa'igta laakiin gudihiisa ka ah shaydaan. qofkii uu nolosha ku qabtay isagoo ammaan leh kama soo baxo godkiisa. saaxiibkii u diyaar galow soona qaado shaaxaaga. maanta waxaan falanqaynaynaa mid ka mid ah shakhsiga animeedka ugu khatarta badan leh. diyaar waa tahay maaha? haddaba inoo bilaaba animeega Monster oo dhammaystiran. kan waa Dr. Tema oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka neerfaha iyo maskaxda. asxaabay maanta waxaan noo soo khulaasay animeega 60 xalqo. marka waxaan noo hadhay 15 xalqo. 15 xalqana waan la soo dhaqsan doonaa laakiin bil sharti hadda muuqaalka 1k gaarsiisan oo like xalqadaha kale ka walwalina waa diyaar dhiriga ay saaran tahay oo reer waaba sii diyaariyay laakiin 1k muddo 3 cisho gudaheed ku gaarsiiyay asxaabay. hayaan ku socono sheekada Dr. Tema. waa nin Jabaan oo jooga dalka Jarmalka aadna looga ixtiraamo isbitaalka dhexdiisa. xirfadiisa darteed waa nin asluub leh oo dadku badan ay jecel yihiin oo dadaal badan. maalin maalmaha ka mid ah soo isku diyaarinay qaliin ayaa ninka isbitaalka maamulaha ka ah ayaa wuxuu ku amray inuu toogo bukaan kale oo ku yiraahdo bukaankaas lacag fara badan siinaya ee kan iskaga tago ka kale ku sameey qaliinka. kan waa mid faqiir ah. Tema waa dayacay amarkii uuna ku guuleystay qaliinkii kaasoo lagu fulinay gabadh fanaanada. xagaasna waxa laga siiyay isbitaalka sumcad iyo maadiyanba waxa laga dhigaa mid dhaqaalaha isbitaalku. markuu doonay inuu bukaankii kale ku fuliyo qaliinka ayuu xoogaa bukaankii kale u geeriyooday. markaas agaasimaha wuxuu yiraahdaa qaliinka fanaanadan ku fuliyay ama qofka fanaanka aan ku fuliyay aniga ay ku guuleystay isbitaalkana isaga yani mudnaanta kooban la siiyay laakiin ma in la siiyo Tema wuxuu iska inta tira dadaalku ku bixiyay wiilka Tema. haddaba wiilka Tema xilliga wuxuu lahaa xiriir oo la lahaa gabadhaas oo dhalay agaasima ama ninka isbitaalka iska laakiin iyadu wiilka danka ma lahayn kaliya waxay ahayd gabadh ku daneysata. isagoo wiilka isbitaalka dhex socda ayaa wuxuu arkay haweeney ama gabadhaasina wax ku tiraahdaa ii soo celin ninkaygi. maasoo ku raahdaa maxaa ka hadlaysaa marwo? maasoo ku tiraahdaa ii soo celin ninkayga maxaad qaliinka ugu sameyn weyday isaga marka hore ma fanaan caan ah ayaa darteed u dishay ninkaygi. markuu wiilka hadalkaas maqlo ayaa waxa dhayn dareenkiisa ama yani damiirkiisa uu kaco wuxuuna bilaabay inuu ka xanaaqo maamulihii. wuxuuna isku eedeeyaa geerida ninkaas inuu isagu ka dambeeyay oo isagu gacantiisa ku dilay. Tema isagoo murugaysan ayaa waxa uu maqlaa in magaalada ka dhacay dilkaas oo ah mid aad u naxariis daran. qoys maalqabeen ah ayaa la weeraray, aabihii hooyadii waa la dilay, wiilkoodii yaraa xabad ayaa madaxa looga dhuftay laakiin gabadh waxa nooleed kaliya gabadhii yareed mataankiisa ahayd wiilka ayaa la dilay madaxa xabada laga jiiday. gabadha yarna wejigeeda waxaa ka muuqda naxariis saa'ida oo way naxsan tahay laakiin wiilka yar madaxa xabada looga jeeday nasiib wanaag isagoo muu geeriyoon. markaas waa wiilka yar oo la cararo isbitaalka waxaana loogu yeeratay Dr. Tema. markuu yimid gabadhii yareed ayaa waxay ku tiraahdaa dil isaga. markaas Tema wuxuu isdhaahdaa malaa waxay ka hartay naxdinta ama dilaaga ayaa yani ay ka dhex arkaysaa oo isagoo ay u malaynaysaa inuu yahay dilaagii. isla waqtigaas waxaa keenay barasaabkii gobolka kaasoo yani xanuunsaday. markaas si caadada ahayd ninka agaasima ahaa kaasoo lacag ku caabudi jiray ayaa u yimaaday wiilkii Tema wuxuuna ku yiraahdaa isaga tag wiilkan yar waana barasaab ku sameeyay qaliinka oo naftiisa badbaadisa. markaas wiilku wuxuu yiraahdaa maya ma yiraahdaa markii hore ayaan qaliin rabay inaan sameeyo qaliinkiina waan ku guul daraystay. sababtoo uu leeyahay qaliinka uu ku guul daraystay waxa weeyaan in yani markii uu soo qaliinka ku fuliyay uu ninkii yani uu ku fuliyay qaliinka ma qofkii fanaanka ah uu ku fuliyay sumcadiisa isaga yani korba loo soo qaadin ana la hadal qaadin. dhan kale wuxuu ugu guul daraystay qofkii mudnaan qaliinka ku fuliyo kaasoo abaal u hayn lahaa isana uu geeriyooday laakiin waa wiilkaasi wiil faqiira. that's why he say waxaan ahay qof guul daraystay oo waxaan dilay qof miskiin oo aan waxba ii dhimin aniga. markaas isagoo dhag jala qusiin ayaa wuxuu bilaabay inuu wiilkii yar u soo galo qaliinkii wuxuuna bilaabay inuu wiilkii yar badbaadiyo una ka badbaadiyay dhimasho. laakiin qofka uu badbaadiyay dhimashada ka badbaadiyay waa qofkii u diidi lahaa nolosha inuu ku sii noolaado oo wiilkan Tema ku kalifi lahaa inuu isagu naftiisa dilo. inkastoo isagu isdilin laakiin wuxuu ku kalifaa inuu yani ku fikiro naftiisa dhaafiyo maadaama qofkan uu badbaadiyo uusan ahayn qof bilaadan ee uu yahay shaydaan aad u naxariis daran. haddaba ku soconee wiilkii Tema markuu qaliinka ku fuliyo wiilka yar oo yani ka soo horjeesto amarkii maamulihiisa waxa dhayn shaqadii laga yeeray lagu yiraahdo kabahaaga shanqadhoodana maqashii oo gurigii hooyada ku laabo. gabadhu doonay inuu qaliin ku fuliyo war qaliin way dhex maray. gabadhu rabay inuu guursadana iyadna way ka tagtay waxayna ku tiraahdaa maadaama aabbahay ka soo horjeesatay adiguna waa guur albaabku ku beenan yahay ee iska tag. haddaba soo laabana ka isbitaalka waxaa ka dhacday dhacdo la yaabo oo dadka dibnaha ay qabsadaan oo ay aad uga naxaan. agaasimihi ama ninkii yani dhakhtarkan hogaamiyuga ahaa
iyo laba nin oo dhaqtar oo kale ayaa si qarsoodi ah loo dilay oo loo sumeeyay. Boolisku waxay ka shakiyeen Thelma maadaama iyaga iyo yacni dhakhtarkaas uu ka dhexayso xurguf ama dagaal. laakiin wiilkii Thelma wax caddayn ah laguma helin oo waxaa caddaatay inuu isagu yahay beri. isla waqtigaas wiilkii ay miskiin shaydaanka ka wada shaydaankii loo yaqaanay Yohan iyo walaashiisa yaray waxa laga waayay cusbitaalka oo yacni mare labada carruur lama garanayo cid ka haysatana lama ogo. waxay ayaamuhuba wareegeen waqtiyaduna iswareejiyeen sanadaduna wareegeen waxa la soo gaaraa 9 sano kadib dhacdadaas. wiilkii Thelma wuxuu noqday madaxa dhaqaatiirta qaliinka oo wuxuu u shaqeeyaa cusbitaal kale. gabadhii u dhalay agaasimuhu oo markii hore ka tagtay ayaa hadda u soo laabatay si ay xiriirka u cusboonaysan waxayna ku tiraahdaa waan kugu xeesay baraadarkaygii ayaan isku soo laaban oo xaliimo xaq badan. sababta ugu weyn ay hadda ugu soo laabanaysana wax kale ma ahan ee wiilka hadda wuxuu yeeshay mansab iyo maal. laakiin wiilkii Thelma wuxuu ku yidhaahdaa you broke my heart marka kuma baahni sister ee iska laaba kabahan maqashay albaabkuna kuu furan yahay get out. isla waqtigaas Jarmalka waxaa ka dhacay dilal isdaba joog ah oo yacni si waaliya loo samaynayo. dilalkaas inta ugu badan waxa lagu beegsanayaa qoysaska qaniga ah ee yacni kibirka badan leh. mana jiro qof oo qofka waxa geysanaya ama dambiyada geysanaya waa qofkaasna waa qof wuxuu noqday majhuul ah oo aan la garanayn. isla waqtigaas waxaa soo muuqda nin loo yaqaano Glang kaasoo ah baare aad u caqli badan dembiyo badanna xaliyey oo isaga looga daba fariistay xalinta dembiyada. ninkii dembibaaraha ahaa isagoo samaynaya dembibaaristii ayaa wuxuu qabtaa nin tuuga kaasoo dhaawacnaa waxaana loo keenaa wiilkii Thelma si uu ugu sameeyo qalin. markuu wiilkii Thelma isbitaalka yimaado ayaa waxaa ka hor yimaada baaraha ama baarelneeg oo ku yidhaahda miyaana i aqoonsan 9 sano ka hor ayaana iskugu keen dambaysay. markaasaa Lang wuxuu ku yidhaahdaa saaxiib waxaa tahay qofkii ugu wanaagsan adduunkan ka barto ee miyaana adigu i aqoonsan. wiilkii Thelma wuxuu ku yidhaha waan ku aqoonsanahay saaxiib imaanaa ku ilaawi karaba adiguna comment wax noogu soo qortaa qofka ugu fiican adduunkaad ka baratay. markaasaa Lang wuxuu ku yidhaahdaa saaxiib intaasaa nooga ahaato kaftanku laakiin maanta waxaa rabaa inaad yacni dadaalkaaga oo dhan iyo xirfadaada oo dhan aad iskugu geysatay ninka tuuga dhaawacan sababtoo ah ninkan wuxuu hayaa makhaasi kaasoo ku saabsan keeskan. yacni ninkan waxa uu garanayaa qofka dembiilaha ah ee yacni dembiyada geysanaya ee dad fara badan laayay qoysaska qanigana laynaya. markaasaa Thelma wuxuu ku yidhaahdaa qaliinka uma samaynaya booliska darteed ee waxaan u samaynayaa si aan naf bilaadan u badbaadiyo. marka Thelma hadalkaa ku yidhaahda Langna wuxuu yidhaahdaa miyaaniya qaciga yeersiinaysaa ana weyna kaa yeersiiya saaxiib. wuxuuna ku yidhaahdaa waxaan maqlay in lagu dalacsiiyey madaxda dhakhaatiirta adiga oo dhalinyaro ah laakiin saasay tahay oo lagu daldalacsiinayo imtixaanka waxa kusoo baastay qish ee adigu run ahaantii ma taqaanin qaliinka ee dadka ku caawinin ba yaqaana qaliinka oo kuu sheegaya ee sumcad bad xaga ka yeeshay adiguna. intaasna uguma daa wuxuuna ku yidhaahdaa adiga ay ka dambeeyeen dishay ninka hogaamiyaha cusbitaalka iska lahaa waxaana tahay qof xun oo waxaad ka faa'iidaysatay dhimashada ninka hogaamiyaha ee cusbitaalka iska leh. Thelma wuxuu ku yidhaahdaa hadal yaroo sarbeeb ah oo haddii yacni si fiican uga sii fikirtid aa laga yaaba inaad fahantid. hadalkaa wuxuu ugu soo koobaa ku yidhaahdaa jidka waa uu dheer yahay oo kuma dhow hawl. yaa maxaas leedihiin maxaa waxaanu ka wadaabas leedihiin horta saxaabi ninkan Lang uu magacaabay wuxuu ku yidhaahdaa marka hore adiga ayaa ka dambeeyay uu dhinto ninkan hogaamiyaha ah ee habka aad ku dishay miyaysan fududeyn ama yacni jid yaro fudud ma ahan oo qofku la sumeynaya kadibna la dilaya soo maaha. kadibna wiilkii Thelma wuxuu ugu jawaab ku yidhaahdaa may jidku weli waa uu dheer yahay iska daa inaga markaa inay sharxiyay ku soconayni weeye. markuu wiilkii Thelma uu qaliinka dhameeyay wuxuu soo galaa ninkii tuuga si uu xaaladiisa u hubiyo. ninkii isagoo miyir la ayaa wuxuu ku dhawaaqaa hadallo naxdin leh oo qalbiga wiilka Thelma gilgilay. hadalladaasoo ah bahalkii waa uu soo socdaa bahalkii waa uu soo dhow yahay. markaasaa Lang wuxuu idhaahdaa yaa waa ciddaad ku sheegaysid inuu yahay bahalku laakiin ninka ayaa argagaxay wuuna diidaa inuu hadlo inuu sheegana qofkaasna uu diidaa. markaasaa wiilka wuxuu ku idhaahdaa Thelma waxaa raba inaan kuu soo sheego ayna mari barxadda kadib barxaddii isla yimaadaan. ninkiina wuxuu ku idhaahdaa ani saaxiibadii waa la dilay qofka dilana waa Yohan. sorry Yohan kuma dhaho laakiin wuxuu ku dhahaa bahal wuxuu ku dhahaa bahalkii ayaa dilay saaxiibadii aniguna waxaan ka baqaya inuu anigana i dilo. markaasaa ninkii tuuga ahaa ayaa wuxuu arkaa in booliskii isaga waardiinayay ama yacni booliskiisa rabay inuu iska ka warhayaan la dilayaga oo yacni geeriyoodeen. kadibna wiilka cabsi darteed ayuu wuxuu yimaadaa dhismo duug ah ama yacni dhismo qadiimi ah kaasoo cisbitaalka u dhowaa. Thelma ayaa ka daba orday markii ay Thelma dhismihii soo galay ninka ayaa ku qayliyey wuxuuna ku yidhaahdaa ha soo gelin dhakhtar ee fadlan dib iskaga laabo.
isagaa dila saaxiibadee adigana naxariis la'aan ayuu kuu diri doonaa ama si naxariis dara ayuu kuu diri doonaa isla halkaasna waxaa taagnaa dilaagii dadku ka wada cabsooneen markuu wejigiisi soo rogay Tenma ayaa naxay wuxuuna ku yidhaahdaa ma adiga ah qofka dilaaga ah markaasaa dilaagi wuxuu yidhaahdaa ama ninkii naxariis dardarnaa wuxuu yidhaahdaa ku soo dhowow Dr. Tenma waan ku salaamay ma i garanaysaa aniga waxaad ii badbaadisay noloshayda 9 sano ka hor Tenma ayaa wuxuu ku yidhi Yohan wuxuu ku yidhaahdaa haa waa wiilkii yaraa ee aad badbaadisay markaasaa Yohan wuxuu ku soo saaraa boostolo wuxuuna ku yidhi Tenma adigu waxaad ii tahay sidii aabbo oo kale waxaan dilay agaasimihii iyo dhakhaatiirta kale waayo adiga ayaa rabay inay dhintaan miyaysan ahayn markaa miirkii soo laabtay waxaan fuliyay rabitaankaagii kaasi oo ah inaan dilo ninkii agaasimaha ah ama ninka iskale dhakhtarka markaasaa wiilkii Tenma wuxuu isku dayaa inuu wiilku waa caqli celiyo laakiin wuxuu ku yidhaahdaa adigu waxaa tahay aabbahay rabitaankaaga ayaana fulinaya kaasi oo ku aadanaa inaan dilo qof walboo lacag caabuda wuxuuna bilaabay inuu ninkii tuugaa warkiisa ku garab joogto markaasaa Yohan wuxuu ku yidhaahdaa waan ku faraxsanahay inaad dalaacatay oo aad noqotay nin sare kaasi oo ah hadda leh mansab iyo maalba leh dabadeedna waa iskaga tagayaa oo ka qarsoomaya dhinaca kale waxaan arkaynaa gabadhaas waa gabar qurux badan waxayna dhigataa jaamacadda gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Nina waxay u muuqataa inay tahay mataantii Yohan ee luntay laakiin gabadhan Nina iyada xasuusta ka tagtay oo ma xasuusato wixii dhacay 10 sano ka hor waxay bilowday inay hesho fariimo digital ah fariimahaasna waxa ku qoran waxaan ku siin doonaa ubaxa ugu quruxda badan caalamka animega qumuud buna la gal iyo sheeko halis sir uuna markaas gabadhii Nina waxay u tagtaa nin dhakhtar ah ninkaas oo dhakhtar nafsiya waxna ku tiraahdaa habeenadoon dhan waxaan ku riyoodaa ninkaas oo la igu yaray inuu yahay bahal kaas oo horteeda ku geysanay dileel aad u xun oo qof walba ka shaleeyo maalintii xigtay waxay imaaday jaamacaddiina waxaa loo sheegay in lagu yidhaahdaa xalay waxaa geeriyooday qoys dhan oo qoyska dhan waa la gumaaday waxayna hayeen qoys nubalaa ah oo qaniyiina markay hadalkaas gabadhi maqasho waxaa dhacday inay naxdo oo tiraahdo kulliin bahalkii xalay ku yimday eeriyada wax kugu sheekeynayay ayaa kulliin dilay oo ka dambeeyey aan soo laabana Tenma wuxuu bilaabay inuu raadiyo macluumaad ku saabsan wiilkii Yohan wuxuu u tagay guri oo Yohan ku noolaan jiray wuxuuna halkaas kula kulmay nin oday ah oo indhoolo ah odayga ayaa u sheegay wiilkaas Yohan wuxuuna u sheegaa ku yidhaahdaa xaggan Yohan wuxuu kula noolaan jiray lamaanahaas oo ahaa kuwa qaniya xaggan wuxuu kula noolaa muddo 14 bilood ah waxaana ku yidhaahdaa wuxuu ahaa wiil aad u caqli badan oo yaqaano luqadaha Ingiriiska Faransiiska odaygiina waxaa intaas u raaciyaa ku yidhaahdaa Yohan aad ayuu u jeclaan jiray sheekooyinka dagaalka ee sheekooyinka cabsida ah gaar ahaan dareenka cabsida kuwa ka hadlaya ee dadku dareemaan markay dhegeysanayaan sheekooyinkaas cabsi aad u badan waxa kaloo jeclaa inuu maqlo dad geeriyoonaya ama wax walba ku saabsan dhimasho iyo waxyaabo xun oo dadka bini'aadamku inuu adkeysan karin ayuu isagu adkeysan jiray waxayna waxaas ahaayeen waxyaabaha adduunka ugu jecel yahay oo doobaabinkiisa ay ahaydba odayga isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu ku yidhaahdaa inkastoo aan ahay indhoole haddana waxaan dareemayaa inuu indhihiisa ay iftiimayaan wejigiisuna uu dhoola cadaynayo oo u muuqato markan inay jecel yahay sheekooyinka dhimashada ugu dambayna odaygii wuxuu sheegaa ku yidhaahdaa Tenma qalbigiisa dadkoo dhan uu neceb yahay oo dadkoo dhan ma soo dhawaysto marka laga reebo hal qof oo keliya halkaas qofna cid kale ma ahan ee waa walaashiis ama mataantiisa ka yaray wuxuuna u ballan qaaday inuu gabadha yar walaashiis ah in markay 20 jiryadu gaadho iyaga isla noolaan doonaan oo guri ku noolaan doonaan intaasna ku yiraahdo iskala noolo qoyska qaniga ah oo noloshooda iskaga baashaal markaasaa wiilkii Tenma wuxuu ogaadaa in mataanta wiilkin Yohan ay tahay gabadh loo yaqaan Nina taasoo ku nool magaalada Helberg Nina hadda waxay gaartay 20 sano waxaana la nooshay waalidiyada soo korsaday oo iyaga aad u jecel nin marka qaar Soomaaliga iga wulumaama san ajaanib wax u daawanay oo iyada aad u jecel marka wada asxaabe iyaga aad u jecel tan kale waxaa arkay wiilkii Yohan kaasoo ka ilaalinaya walaashii meel aad u fog wuxuuna u soo diraa fariintaasoo ku yiraahdaa waxaan iskula kulmi doonaa qasriga loo yaqaan Helberg han soo laabana wiilkii Tenma isna wuxuu bilaabay wiilkii Tenma dhankiisa ka bilaabaa baaritaan isagoo kaashanay wariyahaas loo yaqaan Maurer Tenma hadda wuxuu aaminsan yahay ama uu og yahay inuu wiilka Yohan iyo walaashiis isla kulmi doonaan markii walaashiis gaadho 20 sano si uu ka haysto walaashii kadib uu u dilo qoyskii soo korsaday halkaasna waxaa kaaga cad in wiilkan uu cuqdad aad u xun u hayo dadka nubalaaga ama qaniga ah xitaa qofkii walaashii soo korsaday intaas sano ku soo tabcay ayuu dimacsan inuu dilo markii walaashii 20 sano gaadho sano soo ka haysto walaashii kadibna ay la noolaato walaashiisa
wiilkii teema isagoo shaxdan yacni uu degsay Yohan fahansan ayaa wuxuu yimaadaa ama u soo caaraa dhankii gurigii Nina laakiin gabadhii Nina xilligaas waxay ku maqneen meeshaasoo ah yacni qasri ah si ay la kulanto saaxiibkaagana naxariista darnaa ayay rabtay inay la kulanto Tenma wuxuu ku xaray qalcadda ama yacni qasriga si uu badbaadiyo Nina xagga wariyihii ama wariyihii loo yaqaanay Morar uu isna guriga la joogay waalidkii gabadha yar soo korsaday Tenma waxa uu helaa Nina isagoo ka badbaadiyey rag ay boolis u malaynayeen oo Yohan u soo diray laakiin gurigii markay ku soo laabteen waxay arkeen masiibo aad u naxdin daran waalidkii Nina soo korsaday iyo ninkii wariye ahaaba dhammaan waa la laayay oo waa la gumaaday xagaasna waxa ka dhacday majzarax aad u daran wiilkii Temana hadda waxa ku doogeen maskaxiisa qarxdo yacni shaxdan wiilkan uu dhagsay Yohan qofka kaliya reebay inuu ka badiyo wuxuu ahaa Tenma laakiin miskiinka yar loo yaqaano Tenma waxa uusan ogeyn inuu la tartamayo ama yacni la xifaaltamayo dilaaga ugu naxariista badan dalka Jarmalka ee hadda ku nool kaasoo inta u badan dileelka uu ku geystay maskaxiisa marka laga reebo bayskooladii waxyaabo kale Nina iyadoo naxsan ayaa waxay aragtaa dhiigii waalidkeeda soo korsaday waxay u soo laabatay xasuustii ka maqnay muddada 10 sano ahayd taasi oo ah in Yohan ay walaalo yihiin qofkii yacni riyada ugu iman jiray mar walba ee ku oran jiray waxaan ahabaha oo waxaan geysan doonaa dil ay markay maqasho riyadaas ee isla subax arkaysay in dilka yacni xalay ku riyoonaysay mid lamid la geystay inuu yahay qofka Yohan loo magacaabo kaasoo ah walaalkeed ama yacni si kale haddaan u dhigno waxa u soo laabatay xasuustii muddada 10 sano ka maqnayd waxayna tiraahdaa aniga ayaa dilay walaalkay aniga ayaa toogtay walaalkay laakiin waxa badbaadiyay Tenma wuxuu noqday ninkii badbaadiyay dhimashada waxayna tiraahdaa Tenma wuxuu dilay waalidkayga dhabta ahaa iyo waalidkayga soo korsadayba oh sorry Tenma yiri Yohan ma ka wada waxaan ogaanaynaa qofka xabadda ku jiiday Yohan markuu yaraa in ay ahayd walaashii taasoo yacni rabtay inay badbaadiso waalidkeedii markuu damcay inuu Yohan dilo waalidkeed laakiin Yohan uu ka gacan fududaaday labadii waalid isaga dhaleen wuxuu bilaabay inuu dilo isagoo raba inuu iyadana dilo iyadoo xabadda kaga horeysa wiilkii yaraa Yohan dhulka ay ku dhaca kadibna waa kan loo keenay Tenma qalinka ku sameeyay kadibna xabadda uu ka soo saaray maskaxda yacni uu badbaadiyo markaasaad Nina waxay bilowday inay wiilka u qayliso ku tiraahdo sabab ma ayaa badbaadisay dilaagigan aad ku naxariista daran leh markaasaa goobta waxay imaaday booliskii laakiin laa xayaata liman tunaadi haddaba asxaabayd booliska meesha imtay wiilkan Yohan ay u shaqeeyaanba oo waa kuwa dilalka la fuliya cidda kaliya fahansan yacni xaqiiqadooda dhabta ahna waa wiilkan Tenma oo Tenma u ogaaday in yacni yihiin dilaayaashii la shaqaynayay wiilka Yohan kuwana ma ahan boolis dhab ah oo xukuumaddu ay leedahay laakiin waa kuwa rag ah oo shaqeeya Yohan oo xiran dharkii booliska kadibna gabadhii Nina iyo isagu waxay bilaabeen meesha ka soo cararaan wiilkii Tenma xagaas wuxuu ka fahmaa in yacni Yohan uusan ahayn dilaaga kaliya geysanay dambiyadan ay la shaqaynayaan rag kale haddaba gabadhii Nina iyadu maxay dareemaysaa gabadhii Nina waxay dareemaysaa xaasidnimo xiqda u hayso walaalka Yohan waxayna bilowdeen iyada kaligeed raadsato si ay isaga u disho noloshana ugu qabato ku ciqaabto bal maxaa ka xun walaasha yacni ku soo dandoonayso ku raadinayso si ay nafta kaaga goyso waxayna Tenma uga tagtaa fariin kaasoo ay ku qoran tahay adigu waxaa tahay dhakhtar kaasoo badbaadiyay dhimashada laakiin waxaan kuugu dhiirigelinayaa inaad shaqadaada ka sii wadatid oo howlaha Yohan faraha la soo galin oo aniga ay iga seexatid aadna badbaadisid dilalka uu geysanayo ama yacni dhaawacyada uu geysanayo walaalka Yohan intaasoo kale kaga codsanaya fadlan haddii yacni aad ii fulinaysid codsigaas ii fuli oo adigoo Yohan haddaba socon aniga ayaa soo qabanaya noloshan ku qabanaya kadib waan ku dilayaa adigoo kaliya waxaad badbaadisaa ciddii dhaawac ah ee lagu keeno ma ahan laakiin waa codsi ee leegta saara haddaba aan soo laabano dambi baare lang isagoo raba inuu baaritaankii sameeyo ayaa wuxuu arkaa taygii wiilkii Tenma wuxuuna idhaahdaa taygan waxa iska lahaa Tenma waxaana hubaa inuu isagu dambiilaha yahay oo isqarinayo oona uu leeyahay wejiga muskiimaha laakiin gudaha ka yeeshay shaydaan cidda dishay maamulahana cid kale ma ahan ee waa Tenma isagana dilalka ugu halista badan la geysanaya maadaama dadka qaniga aha uu u hayo cuqdad wixii eedayn ahayd oo dhan ama dambi oo dhanna wuxuu wiilkii Tenma ay dusha u saaraa oo wuxuu ka dhigaa dambiile la raadsanayo inkastoo uu hayn cadayn laakiin haddana dadkii oo dhan ayuu ku diraa waa asiidukum min shacaril baytan gabadhuu ku dhahay gurigooda iska taga kuma baahni ee lagu magacaabay Eva taasoo dhalo hogaamiis kala hospitaalka ayaa waxay imatay wiilkii waxay ku tiraahdaa saaxiibaan ku xiisay ku tiraahdaa iminka waxaad leedahay mansab iyo maal aabahii uu geeriyooday hantida aabahii way burburtay wax aan ku noolaado ma haysta ee fadlan caawi oo guurto waana ku jecelahay ku tiraahdaa wasu ku tiraahdaa waan ku ogeynaa danaysa tahay mar labaad ay kugu celinaya mar saddexaad ay kugu celinaya anigu kuma doonayo ee dariiqa iska mar
mar baad qalbigayga jabisay aabahana shaqadii uu lahaa uu iga soo eriyey waxaasoo dhanna aad igu samayseen mar xitaa waxaad iga dhigteen qof yacni bilaa sharafa oo wiil miskiinaan aabii ka dilay kadib markii aan qaatay lacagta xaaraanta ahayd oo aabaha isiin jiray ee weliba bilaa faa'iidada ahayd adiguna waad iga tagtay anigoo ku jecel baad qalbigayga jabisay qol madow ayaan maalmo mugdiya ku noola keligay oo qalbi jabiya lacag la'aan ee haystay shii isugu darsatay adiguna markaasaad isoo laabanaysa markaa waxaasoo dhan ka soo bogsaday ee fadlan mar dambe wejiga ay tusin ee iga tag buu ku idhaahdaa laakiin waa masiibo mayna saas kaga tagtaa umalaynaysiin wiilkii tahay xadhigiisay soo qaadaa waxayna u geysaa booliskii waxayna ku tiraahdaa cidda dembiga geysatay waa wiil Tenma waana wiilka ka dambeeya waxaan oo dhan dilaal ah isaga ayaana qorsheynaya wuxuuna iska dhigaa qof miskiina ee miskiin ma ahan waa nin khiyaanoola oo dambiile heer sare ah oo qaliinkana soo fiican ayuu yaqaanaa dadkuna meelahay naftu kolkaarba ka bixi karto ayuu yaqaanaa saas ayuu uga faa'iidaystay xirfadiisii waana dilaa halis ah ee hadda soo qabta haddaa caddayn rabtiinna tayga DNA-giisa baara isaga DNA-giisaad ka arki doontiin kadibna dilalkii meelay ka dhaceen isku baarbaara isaa idiin soo bixi doona wiilka Tenma ayaa waxaasoo dhan noqon doonaay waxaasoo dhan u samaynaysana waa bisababa wiilkaas inay ka argudato ama intiqaam ku samayso markaasaa boolisku waxay idhaahdaan haa gabadha run bay sheegaysaa ninkan wuxuuna uu noqon karaa dilaa maadaama uu yaqaano meelay dadku nafta ka bixi karto yacni dilalkana uu geysan karo uuna yahay nin qaliin oo heer sare ah sidoo kalena uu yaqaano sida wax loo sameeyo oo ninka hogaamiyaha ahaa ama ninka iska lahaa isbitaalkan uu sameeyey waxaasoo dhan waxay caddaynayaan inuu ninka noqon karo dilaa oo wejiga miskiimaha uu leeyahay haddaba si kastay ahaatabe waa inaan hadda soo qabanaa intuusan dilal kale sii geysan ninkaas waa dilaa aad u halis ah markaasaa boolisku waxay bilaabeen inay hosbitaalka wiilkii Tenma soo haraareeyaan Tenma isku naxaa wuxuu idhaahdaa maxaa dhacay maxaa la sameynaya markuu ogaadin booliskiisa inay isaga u soo socdaan ama ay rabaan yacni ay qabtaan ayuu wiilku wuxuu bilaabay inuu hosbitaalka ka baxsado markaasaa wiilkii Tenma wuxuu is dhahaa hadda wiilkan Yohan hadda ku idhaahdo wiilkaas ayaa dilalka geysanaya qof i aaminaya ma jiro waayo wiilka wiil wuxuu leeyahay wejiga miskiin uu leeyahay wuuna weji yar qurux badan uu leeyahay waxaana loo malayn inuu yahay qof beri ah oo aan yaqaan xitaa sida dadka loo saro ama yacni dadka wax loogu mudo misbaar xitaa aan qofka lugta kaga mudi karin midda kale boolisku waxay iga hayaan caddayn been abuur ah kaasoo ku saabsan taayigaygii markaas wuxuu idhaahdaa leytaniya maxaan sameeya haddaba dhacdooyinkaas waxaa ka soo wareegata muddo 5 sano wiilkii Tenma lama arag isbitaalka mar labaadna kuma soo laaban meel uu jaanic cirib dhigana lama garanayo boolisku way raadiyeen dadka dadweyne xitaa way raadiyeen si ay u soo qabtaan xitaa boolisku waxay bilaabaan heer ay wiilkaas madaxiisa dul dhigaan lacag weyn yacni waxaan ka wadaa lacag badan ma ka wadaa lacag weyn ma jirtay haddaba 5 sano kadib waxaa si kiis u soo muuqda wiilkii Tenma isagoo xiran jaakad weyn dadkana iska qarinaya hoostan wuxuu ku wataa baskoolad wuxuuna raadsanayaa wiilka Yohan wuxuuna niyadda ka leeyahay Yohan mar uu noloshan kugu qabto haddaa nolosha kugu cadaabi waayo haddaba 5 sano Tenma maqnaa ma inuu aamusan muleeyay wiilkii Tenma yacni Yohan ka wada Yohan ma inuu aamuso iska miskiin yahay baa muleeyay dilal wuxuu geystay dilal ka sii daran kuwii hore oo dalka Jarmalka 100% dadka Jarmalka ku noolaa يعني أولاي ومجالات فرانكفورت متجية مر برلين متجية كل مال أي يعني تجية وكسو جيسين الدليل وحن أوران كرناوي اللي كان يوهان دل كوح ونقضي بالوديسة يعني ما أنت تسوقف بلا جاي ندلو ميدا كلو اللي كان ويل آذو عقل بدن دليلك وجيسين يد قف كشكينا أما يعني الدرامي مجرته وحكلوها هذه السنة وهب واللي بقوري أو حبض لما مقليه xiliga yani qofku tooganaya ama qolay kaliya dadka uu qorsheynaya qofku rabo inuu dilo agtiisa yar garabtaga kadina yani uu jaasuusaya ama yani waqtiyadu firaaqada yahay ayuu jaasuusaya kadina markuu qofka nolosha ku qabto nolosha ku cadaabaya midkan niga ilaawa saxaabi wiilkan Yohan dadka uu dilay waa dad u gaar yani dad qofka iskama dilay dadka uu dilay waa dadka qaniga ah sababtu dilay dadka qaniga ana markii yani qaliinka la rabo in lagu fuliyo wiilkan Tenma uu rabo inuu qaliinka ku fuliyana hogaamiyihii gobolka uu ka xanuunsaday yani anigu soo sheegay xalqadii hore kadina yani la rabay in Yohan qaliinka laga wareejiyo oo loo wareejiyo wiilkan yani hogaamiyaha gobolka wiilkan Tenma loo kaxeeyo lagu yiraahdo wiilkaas ninkaas qaliinka ku fuliyay laakiin wiilkan Tenma uu damiirkiisu shaqeeyay oo uu badbaadiyay halkaasna Yohan lagaga badbaadiyay marka Yohan isagoo miir daboolan ayuu wuxuu maqlay hadalkaasi oo ah in wiilka Tenma uu yiri dadka maal qabeenka oo dhan ee kibirka badan leh waxa waajib inay geeriyoodaan oo qofna yani dhulka loogu deeyo oo yani maal qabeen ama kibir badan maalinku soo bogsadayna go'aan ku gaaray in qof kastoo dambiilaha oo nafta ka gooyo waa sida caruurta hadlay walaalkay markuu yaraa dhihi jiray haddaan maanta yani waxa ay ammaansiin weysay naftan ka gooyay si nafta la iska gooyay ama yani la iska qaado oo la iska qaado nafta laakiin la iska gooyo haddaba ku soo laabnay wiilkii Tenma iyo xaaladiisa hadda wiilkii Tenma ee nacba dhimashada ama yani in qof la dilo
qof walba halis ugu jira inuu dhinto yani badbaadin jiray wiilkaas hadda wuxuu raadinayaaba dhimasho yani wuxuu rabaa inuu dilo qofkaasna cid kale maan waa Yohan wiilka xaaladiisu isbedeshay wiilkii yani Yohan ayuu daba dhiganayaa oo yani raadinayaa markaas isagoo raadsanaya ayaa waxa dhacay inuu seasonkaasi uu xaggaas ku dhamaado asxaabay intaasan kusoo gabagabeynayaa animiga Monster iminka waxaad leedihiin ma 15 xalqo oo dhan ayaad kusoo khulaasaysay 10 daqiiqo horta asxaabay eeg anigu markaan wax soo khulaasaynayo qisada muhiim inaad fahamtid yani waxaan kale laga hadlayo iyo waxaas muhiim ah animiga marka xitaa markaas la soo saaray qisadiisa dhabta ah marka la soo saaray dadku qisada soo qaataan qisada waxa laga yaabaa inay socoto xitaa 20 daqiiqo kali ama 10 daqiiqo laga yaabaa inay qisada dhanba tahay haddana 10 daqiiqo yani dadku yani dadka animada soo saaran jeeda Japanese iyo Chinese soo saaran jeeda dadka kale soo khulaasay kama hadli dadka soo saaran ka wada dadka soo saaran animigi qisadan 10 daqiiqo yani laga sheekeyn karo ay soo saareen kadib waxyaabo kale ku dardarayaan si yani qisada u dheeraato animiguna u sii dheeraado marka qisada animiga muhiim in la fahmo oo xalqad kasta scriptigeedan qoranaya yani wixii ka dhaco dhammaan qoraya kadib inaan la wadaagaya oo yani anu animiga waxba kama budbudayo waxna kuma darsiisan soo khulaasaynaya oo si aad u fahantiin marka khulaasada haday cajabisiin fal muuqaalka like saara 6k asxaabi 6k balankeen waa 6k 6k ugu tuura asxaabi 6k waa hamigeena ugu weyn bisha inta sandamaan waana 6k ugu tuurtiin like tanada waa dhankiina dadaalka iyo yani anime soo baytaanka iyo dadaalka waxaas ani igu daadankayo yani waa shaqada taas laakiin like to subscribe to diika keena marka intaas ku soo gabagaynayna muuqaalkeena maanta xalqadaha kale oo ku soo dari doona asxaabi fadlan muuqaalka mar labaad baan igu celinaya like ta saara subscribe saara ku soo biro 6k ugu tuura maca salaam waa shuufo ku fi anime jaaye